Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Asxaabi videogan wuxuu ku saabsan yahay sida mobilkaaga application-ada qaar oo ogolaan lahayd inaan la isticmaalin kuwa qaarna u ogolaanaysa in la isticmaalo. Yacni qof haduu ku dhaho kale ii dhiib telefoonkaaga waxaa ka wacan oo kale wicitaanka kaliya u furi karto. Haduu ku dhaho game ku ciyaara game-ka kaliya u furi karto. Haduu ku dhaho calculator-ka isticmaala calculator-ka kaliya u furi karto oo meesha uu iska geli karin halka application-ka cusub kaliya oo isticmaali karo. Ama ilmaha yar oo kale game markay rabaan oo kale game-ka yar u dhiibi kartid then uu meel kale ka geli karin game-kas bas ciyaarayo. Marka ugu horeyso waxaad tagaysaa setting-ka ayaad tagaysaa. Tan waxaad kasii tagaysaa biometrics and security. All security setting ayaad kasii tagaysaa. Pin windows off waayo on ayaad ka dhiganaysaa. Marka on kasoo dhigato kadib aad kasoo baxaysaa si toos waxaa u imaanaysaa application-ka aad rabto qofka inaad u dhiibto. Hadaa rabto kaleeto qofka oo ku dhahay calculator kaliya ka isticmaala calculator-ka kaliya u geynaysaa then meeshas button-kas oo la hayo recently button-ka ku dhufanaysaa. Marka ku dhufato calaamadan meesha taalo waxaa loo yaqaanaa bind calaamadaas ayaa ku dhufanaysaa. Enable pin windows okay leh sidaas oo hada ku samaysmay oo qofka kama dhex bixi karo. Wuxuu rabo ayuu samaysan karaa wuu isku dhufsan karaa. Wuxuu rabo ka samaysan karaa calculator-kas laakiin kama dhex bixi karo. Si kastoo ayuu ka bixi karo inta uu ka bixi ma bixi karo. Hadaa haduu saddexda wax ugu bixi karo si fudud yeelo kama bixi karo. Marka aad rabtid in hadhow aad ka baxdid oo kaleete waxaa qabanaysaa meeshaan la dhahayo back button-ka iyo recently button-ka. Button-ka waxaa la back button kanne recently button. Labadooda ayaa hal mar wada riixaysaa then toos ayuu ka bixinaa oo security soo furo ku dhahaa. Qofka kaleeto haduu asxaabta yaqaano oo toos ugu wada bixiyo security ku xiran qofka inuu sii yaqaano. Hadoo kale waa kaas waa ka bixi kartaa.